aniga oo ku hadlaya magaca ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyo ama u cadeeyo dhacdo xalay shaqaaqo xala ka dhacday degmada Hodan zona K abaara 4 saac iyo 50 daqiiqo 5 saac ama 12 oo 10 dhiman fiidnimo dhacdadaas xala dhacday waxay ahayd ciidan lagu ogaa bar control oo ka shaqeynayay iyo ciidan kale oo xeradii ay ka shaqeynayeen lagu ogaa oo ka soo baxay ayaa si qaldan oo isfaham darro ah isugu dhacay meeshaasna waxaa ka dhalatay tacshiirad geysatay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh waxaan ummadda Soomaaliyeed rabaa inaan gaarsiiyo ugana tacsiyeeyo dadkii wax ku noqday tacshiiradii xalay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u naxariisto dadkii ku geeriyooday kuwii ku dhaawacmayna oo Ilaahay u boogadhayo dadkii xala tacshiiradaas ay wax ku gaareen waxaan kaloo rabaa inaan raali gelin dul dhigo dadkii ka agdhowaa soonka ama ka agdhowaa deegaanka xala tacshiiradu ay ka dhacday in aan raali gelin ka siino wixii xala meesha ka dhacay in aysan ahayn wax munaasib ah kuna habboon in dhagaha ummadda Soomaaliyeed ay gaaraan xilligan dadka Soomaaliyeed ee deganaa soonkaas iyadoo lagu jiro barakeysnayd ee Ramadaan ayay dhacday tacshiiradaas waxaanan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan askartii ku lug lahayd ama ciidankii ku lug lahaa tacshiiradaas xalay la hor keeni doono cadaaladda sida ay qabaan shuruucda dalka u taala lana cadaalad marin doono cid walba oo ku lug yeelata falkii xala meesha ka dhacay waxaan mar kale rabaa inaan digniin gaarsiiyo in aan mar dambe la aqbali doonin in isku dhac ciidan uu ka dhaco laba ciidan oo ka wada tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inaan la aqbali doonin wax isku dhac ah oo ciidanka dhexdeeda ciidii dambe ee ku lug yeelatana la marsiin doono tilaabada sharciga la waafajin doono tilaabada xaq u yeelato waxaa kaloo rabaa inaan fursadan halkan uga faa'iideysto baryahan dambe waxaa soo baxaya tugsaqajaan dadka xaafadaha habeenkii xilliyada dhexe ama viidkii oo kale ama xilliyada dambe u isticmaala in ay motobajaaj wax ku dhacaan ama toorey ama baangad hub noocaas ah dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo looga qaato iyagana waxaan u sheegaynaa in aan marnaba loogu dulqaadan doonin ciddii ku tala gashay inay dhibaatayso ummadda Soomaaliyeed Ramadaan mubaarak aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh